maanta taariikhdu tahay 19 abriil 2018 waxaa la magacaabay xubnihii la sugayay inay soo qaban qaabiyaan ayaa waxaa la magacaabay 19 abriil mudanayaal kadib markaan dhageystay soo jeedinta xildhibaanada golaha shacabka waxaan halkaan hoose ku magacaabay guddiga doorashada gudoomiyaha golaha shacabka xubnuhu waxay kala noqonayaan hadduu ilaahay yiraahdo kow xildhibaan axmed cusmaan ibraahim daqare xildhibaan cabdifataax maxamed cali xildhibaan cabdifataax qaasim maxamuud xildhibaan cabdulaahi maxamed aadan shaacir xildhibaan canab xasan cilmi xildhibaan deeqa xasan xuseen xildhibaan khaliif cabdi cumar xildhibaan maxamed cabdikaafi maxamed xildhibaan nuur iidow beyle xildhibaan siciid maxamed maxamuud xayd xildhibaan xasan cali maxamed amar dambe xildhibaan xiis xasan aadan xildhibaan yacquub cali maxamed xildhibaan sahra cabdiqaadir cabdiraxmaan xildhibaan saynab maxamed caamir 15kaas xubnood ayaa la soo magacaabay waxaa la farayaa dhammaan xubnaha guddiga inay soo qabanqaabiyaan doorashada gudoomiyaha golaha shacabka muddada uu xeeriyey dastuurka iyo xeeroosaadka golaha shacabka xilhaynta guddigan wuxuu ku eg yahay xilliga doorashada gudoomiyaha la soo dooranayo naga gudoomo salaan xushmad iyo qadarin mudane xildhibaan cabdiweli ibraahim sheekh muudey kusimaha gudoomiyaha golaha shacabka ahna gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka xildhibaanada sharafta leh waxaan ugu yeerayaa inay hadduu ilaahay yiraahdo ay eegaan cutubka labaad ee xeeroosaadka qodobkiisa 5aad oo qeexaya qaabka loo dooranayo gudoomiyaha golaha iyo labadiisa ku xigeen faqradda koowaad waxay sheegaysaa si waafaqsan qodobka 65aad faqradda koowaad ee dastuurka waxa weeye gudoomiyaha iyo ku-xigeenada waxaa cod qarsoodi ah oo aqlabiyad ah ku dooranaya xubnaha golaha shacabka marka ay bannaanaato jagada gudoomiyaha xilka waxaa sii wadaya ku-xigeenada goluhuna shaqo kale ma qaban karo ilaa uu doorto gudoomiye taasoo ku dhacaysa 15 cisho gudahood haddii kalfadhigu furan yahay waxaa dhacda mararka qaarkood inay istiqaalo timaado kalfadhigoo xiran marka xeeroosaadku wuxuu sheegayaa haddii kalfadhigu xiran yahay fadhiga ugu horeeya ee kalfadhiga xiga ayaa lagu dooranaya marka hadda kalfadhigu waa inoo furan yahay musharaxiinta doonaysa in loo doorto xilka gudoomiyaha iyo ku-xigeenada waa inay yihiin xubno ka tirsan golaha shacabka musharax kasta waa inuu soo gudbiyaa qoraal muujinaya rabitaankiisa oo ay la socdaan 2 sawir iyo taariikh nololeedka CV musharax kasta wuxuu qoraalkiisa ku soo qeexayaa jagada uu u tartamayo haddii ay tahay tan gudoomiyaha ama tan gudoomiye ku-xigeenada koowaad iyo labaad waxa weeye xildhibaan kasta warqadda uu ku soo codaynayo wuxuu ku ridayaa sanduuq marka hore faaruq ah dushana ka jeexan gudihiisana ay muuqato waxaa aad loo ilaalinayaa yacni daahfurnaanta waxa weeye uu xeeroosaadku si gaara uu u sii tilmaamaya qaabka oo loo doorto guddoonka iyo weliba madaxweynaha labadaasba codayntu waxay noqonaysaa 3 wareeg hadduu ilaahay yiraahdo waa qodobada oo wareegyadu iyo sida loo soo kala reebreebayo waxa weeye xeeroosaadka ku sii qeexan tahay waxaana maadaama aanan shaqo kale uusan goluhu qaban karin inuu gudoomiye soo doorto ma ogiye waxa weeye inaan xooggeena isugu geyno sidii aan waqtiga uu xeeroosaadku qeexayo aan ugu soo dooranno gudoomiye hadduu ilaahay yiraahdo golahan hogaamiya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu